ربما توحي لي ربما توحي لي هنا بيحيو هنا كاينو والرجل صار انتي كانوا هنا ما قالوا كودي وحن كلها بركة والله انت يركبوا من سألوا إن المقدموا والله هذا ما قرب إلهي أقرب قلب إلهي أقرب قلب إلهي أقرب قلب إذا كانوا يريره سيادوا حقوقنا الله إذا كان شفته وأنا صاحرين إلى شو ده ها أنا وأنا صاحرين إذا كنا إنك بلادة وهلك كسيوضة الحمد لله رب العالمين الله يدين بركة duridu noqoto Yurub waa la iga yeeray waan diiday waxaan ila hargeysadaydi ayaan ku noqonaya runtahay oo anigu aan u dhashay هو يعني كي سومالي مد هو انتهي كور maanta dareenkaaga shucuurtaada dareenkaygu waxa weeyaan halkan ku dhashay cimrigaasaan ku soo gaaray 80kii waan dhaafay waxa weeyaan 60kii ayaan kan daawanay calanka halkaasaan taagnaa qayriyada waxa heesayay Maxamed Axmed Cabdilaahi Qarshi علي فيموس رجل ما ضاين كوف فنانين habeenkii halkaas oo dhan laga heesay waan joogaano anoo gabar yara oo hablaha yar leeg oo curdina ayaan anigu joogan daawanay maantana waad aragtay inta leegahay ilaahay bay soo gaarsiiyay waa la tagay Soomaaliya loo baxay calankii baa la isku daray annaga degdegnay markii calanka la dhiibay xamar baan u raacay anigoo gabar yara xamar markii loo raacay la isku daray anigu xamar baan ayaan inta ku leegaaday waayo waan ku caruur dhalay waan ku haray waan joogay xamar baan dadkii dabaaldeg u raacay xamar baan shaqo dawlad ka qabtay hawlaha guud waan joogay xamar baan cimriga ku soo gaaray markii imaka duridu noqoto Yurub waa la iga yeeray waan diiday waxaan ila hargeysadaydi ayaan ku noqonaya runtahay oo anigu aan u dhashay meel kale Nairobi loo qaxay waan diiday waxaan ku hargeysan Nairobi aan u qaxay halkan aan u soo qaxay markii xamar laga qaxay waxaan tagay haddana Nairobi horkan ka soo baxay hargeysa waan iga nimid marka anigu taa anigoo inaan yaro ku walaaleeg ayaan anigu taa daawanay intii la heesayo dhan intii la gabeeyo dhan sideed ka sanaba ma hargeysa intuu ku badnay Soomaaliya bad ku qaatay cimrigaaga ha Soomaaliya baa ku qaatay markan ugu badnaa aan ugu yaraa wax yar ka maqnaa waa markii waxaan ku leeyahay la qaxay oo dabadna anigu aan u qaxay Nairobi ma fahanto intii kale oo dhan waxa weeyaan cimrigayga waxaan ku qaatay sidii kolkii qaxii laga dhamaadayna wariga hargeysa imid oo qof wayaaraga tahay kulli dhalinyarada dhanna way ka faa'iideysanaysaa maxaad fariin u reebaysaa dhalinyarada reer Soomaaliya dhan waxaan u fariin u dhiibayaa in dalkaaga horta lagu adkaado lagu faracadaygo aynaguna nabadgelyo